أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وأكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده waxaynu ku jiraa waqti aad u barako badan macnaha wadanka waxa ka jira abaaro aad u adag oo dad iyo xoolaba haya oo haddii aad miyiga qabato ama meelaha baadiya aad u baxdo waxaad arkaysaa xooluhu waxa la waxay daaqayaan amba ay cunayaan ma jiro waxaanad moodaa xasuustaynu xasuusanahay ciddii wax bixin lahayd oo alla ah ama baryada ilaahay inaynu kaba sii jeedno oo aynu ku mashquulsannahay waxaan waxba inooga 15 ahayn hadday tahay siyaasad aan inagayna khusayninba haddii ay tahay muran iyo la kala safasho waxyaabahaasoo dhanna waxay keenayaan waxyaabaha ilaahay naxariistiisa uu ku laalo waxa waajib ah dadka muslimiintu inaanay laabta waxba isugu hayn ogoobay walaalkaaga muslimka ah hadaad laabta wax ugu hayso qalbiga oo aad habeenkii ku seexato naxli iyo calool xumo waxaad ogaanaysaa baryadaada sida loo aqbalaa inay adkaanayso dambi dhaafna si aad u heshaa inay yaraanayso hal xadiid oo saxiix aynu soo qaadanayna xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa oo rasuulku sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi rasuulka warkiisuna xaq weeyaane maalin kastoo isniin ah iyo maalin kastoo khamiisa toddobaadkiiba 2 jeer ayaa camaladaynu qabanno dhan ilaahay la horgeeya oo ilaahay loo bandhigaa dabadeeto albaabada jannadana waa la furaa labadaa maalmoodba maxaa dhaca markaa fayughfaru likulli 'abdin laa yushriku billahi shay'a dabadeeto waxaa loo dambi dhaafaa adoon kasta oo mu'mina oo aan shirki la iman illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fayuqalu anziru hadayni hatta yastaliha anziru hadayni hatta yastaliha anziru hadayni hatta yastaliha laba qof ayaan dambi dhaafka ilaahay helin wiigiiba 2 jeer waa labada caloosha amba uurka wax isugu haya weey waa labada uu ka dhaxeeyo naxliga iyo calool xumadu marka qofka muslimkii waa inuu qiimeeyo nolosha rasmiga ah waa ta dambe aakhirada tani waa tambareeri waa noloshan caafimaad darradu ay taalo waa noloshan silicu yaallo waa noloshan gaajadu ay taalo waa noloshan amni darrada iyo dagaaladu ay yaalaan laakiin waxaad ogaanaysaa inay ka dambayso mid la yiraahdo daaru salaam wa talagu badbaadayo ilaahay agtiisa waana jannada taa u shaqayso garo wixii lagu abuuray haddaad garanaynba wuxuu ilaahay ka lahaa abuuritaankaaga waad lumaysaa waad ambanaysaa ilaahay muxuu ku abuuray axsaabta jirta mid ka mid ah inaad taageerto qiyaamaha markaad tagto maxaad ilaahay la hortagi doontaa ila qabri baa lagu gelinaya 3 su'aalood qura lagu weydiinaya oo mid afraad aan lahayn waa inaad sii barato oo aad ogaato waxaad la kulmi doonto waa barito Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة الرحمن الرحيم مناسبة عيد أوجد وحن همبليا ودريا هالكن ضمان شعبوينا مسلم كا ملك استيكون ليهن جارهان شعبوينا صوماليات جارهان دلك الصومالي لان شعب كنول أيان لو ذاك يفرح عيد وحلا يهي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جارهان هالكن وحنا سلام يا ضمان الكيجا أول على ذي هو ينكي هالكن شوجا iyo dhammaan caruurtan adeerka u ahay waxaan leeyahay ciid mubaarak farxadeeda sanadkaas sanadkeeda Allah inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo kullu caam wa antum bikhayr wala ciid mubaarak warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo ka salaamayaa ehelkayga walaalahay oo hareerahayga jooga iyo qaar maqanba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay ku nooshahay dal iyo dibadba waxaan leeyahay kullu caam antum bikhayr waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ciid farxad leh ku ciido baan leeyahay dhammaan waxaan la wadaagaynaa farxadda ciidda alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay daafaha dunida ka joogaan gaar ahaan ehelkayga oo hareerahayga taagan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan leeyahay ciideeda bash barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo san xirdigta magaalada Hargeysa ama shirkadda Maandeeq oo filinaysa adeegan xoolaha arkayseen ee goobtan lagu qalay haddaba kawaanka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo munaasabada ciid adxaha chief caaqil Cabdiraxmaan ayaa ugu horey bal faahfaahin naga siinaya mas'uulka guud ee shirkadda oo bartan ka hadlaya الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى برشاد الصومالي لان دمان ميل كستو ay ku sugan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka dhammaan bulshooyinka Soomaaliland meel kasta ay joogtaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal hambalyo meel kastoo aad joogtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ciideeda haynugu gaarsiiyo caafimaad qab nabadgelyo iyo barwaaqo intaa kadib maanta waxaynu joognaa munaasabad aad u qaali ah munaasabaddii ciidul carafa ayaynu joognaa sida arkaysaan waxaa noo bilaabmay moosimkii iyo odaaxidii ummadda ay lagu sadaqaysanayay dadka masaakiinta marka maanta oo kale maalmahan ugu mashquulsannahay ugu mashquulka badanna bay ka mid tahay saddexdii meesi ee lodii geeli iyo waxa weeyaan arigiiba waa lagu qalayaa kawaanka inkastoo sanadkan ay noqotay sanad abaara oo xoolo sidii hore aanay u badnayn haddana kolley waxa weeyaan xoolo way yimaadeen oo waa la qalayaa
waxaana la gaarsiin doonaa dhammaan darafyada magaalada iyo waxway koonayaasheedaba in loo qaybiyo oo la geeyo dadka ayaa keensada xoolaha markaa hay-adaha ayaa laga soo qaada dadkaas samafalayaasha ayaa waxa weeyaan soo bixiya sida dowladaha jaarka iyo kuwa carabtaba sida aawadeed xoolaha halkan aanu ugu qallaa gaadiidkana waanu ugu qaadnaa waanu soo wasacnaa annagu waxa weeyaan khidmadda un baanu leenahay iyo adeeg iyo serviskaanu leenahay laakiin dadka ayaa keensada xoolaha dabeetana iyaga ayaa dadka la siinayana soo qora dabeedna dadkii oo meel u joogaba ee halkan marka xoolaha loogu qaaday la googooyo loo yaryareeyo ayaa waxa weeyaan neefkii 4 meelood neefka adhiga ayaa laga dhigayaa neefka geelana ilaa 80 waxa weeyaan ayaa laga dhigayaa ama 120 neefka looda ilaa 80 baa laga dhigayaa marka sidaasaa markaa dadkii loo gaarsiinaya masaakiinta ahaa haddii ay tahay agoomihii haddii ay tahay dadkii waalaa iyo haddii ay tahay barakacayaasha dhammaan sidaasaa lagu fuliyaa marka insha allah taasaynu kala qaybsanaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu ajar inaga siiyo adeega aynu qabanayno ee dadkeenu u baahan yahay aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan waxa weeyaan TV-ga qaranka iyo waxa weeyaan bahda warbaahinta ee nagala soo qaybtay dadweynaha nagala soo qaybgalayba aad iyo aad baa u mahadsantiin ونكسر كل عام وأنتم بخير لما العالم إسلامك عرقية الكينا مالي وياك عاني عافي ما سكو عيدا عيد ونكسر عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير لما العالم إسلامك عرقية الكينا مالي وياك عاني عافي ما سكو عيدا عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير ونكسر كل عام وأنتم بخير شوية تتكينوا عرورية عرالي على ما يلو ليالي عافي ما تسكوا عيدا عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير ونكسر كل عام وأنتم بخير اسعفي يا دمانو يدي على أقسامي كتبال تقعيدو عافي ما سكو عيدا عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير ونكسر كل عام وأنتم بخير طبعا برواقيو هرني ماذا على كينيو عسي يا براري عافي ما تسكعيدا عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال كان معنا كعيدة وحرنتي أغونتا هرجيسة iyo caruurta abandonka ah waxa weeyaan waa caruurtii ku jirtay xarunta awalan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bil khayr dhammaan ummadda reer Soomaaliland ummadda Soomaaliyeed iyo islaamkaba waxaan leeyahay ilaahay sanadkiisa hay nagu gaarsiiyo nabadgelyo barwaaqo caafimaad iyo bashbash insha Allah
أولاً وحال كان isugu keenay ilaaha awoodiisu sarreyso inakoo caafimaad qabno oo nabad qabno iyo caruurta sharafka badan ee sharafka ku ciiday maanta waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo mulkiilaha maxamed aw siciid geedi hay'adiisa khayriga ah ee uu isagu aas-aasay ee la yiraahdo MST Foundation hay'adaasi oo kafaalo qaadatay caruurta iida maanta wax alla yaala wixii ay xidhanayeen oo waliba laba goora maanta iyo bariya iyo dhammaan shaqaalaha haya haday yihiin hablaha caruurta haya haday yihiin qolooyinka security-ga ee ciidamada haday cid drawlada yihiin haday yihiin dhammaan shaqaalaha guud kafaalo qaadatay oo ka wada farxisay oo wada iitiisay waxaanu leenahay hay'adda khayriga ah ilaahay ha ka dhigo hay'adaha adduunka caalamka ka shaqeeya kamid noqota aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halkay ka soo saareenna waxaanu leenahay wax ka khayr badan oo ka badan Allah idin geliyo waxa kaliya ta kuma koobna inay maanta iidsiiyeen dhismayaasha aad arkaysaan waa hay'adii ka qayb qaadatay dhismayaashaasi ilaa malcaamad ilaa keeji ilaa meelaha caruurtu seexato waxa kale oo ay nagu caawiyaan inay caruurta raashinkooda iyaguna billaha ah ay iyaguna ku soo daraan oo caawiyaan waxaanu leenahay hay'adaasi khayriga ah MST Foundation ilaahay ha barakeeyo iyo mulkiilaheedaba aad iyo aad bay caruurtu u faraxsan tahay waxa kale oo jecel inaan halkan uga mahadnaqo madaxtooyada Soomaaliland waxay had iyo jeer la keentaa waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaarto wixii ay cunaysay waxay macmacaankii sharaabkii biskudadii nacnacyadii iyo kana waxaanu leenahay waanu idinka mahad celinaynaa ilaahay bay mahadda u koowaad u sugnaatay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxa kale oo ka qayb qaatay oo xalawiyaadkii keenay siyaasi Jamaal Cali Xuseen oo aalaaba la jaaraxa xarunta keena hadiya jeerale iidihii xalawiyaadka ay caruurtu cunayso isagana waxaanu leenahay halkaad ka soo saartay wax ka khayr badan Allah ku galiyo anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada xarunta goomaha waxaan xaggan uga hambaleynayaa ummadda islaamka ciidul adha ciid mubaarak waxa xaggan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo naga soo farxiyaa maadaama aan dhalinyarta rooroon maxamed siciid geed hay'adiisa foundation waxaan xaggan uga mahadnaqayaa Amuud Foundation dhismaha meesha ka qaadatay aadan baradho dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak in Allahu akbar dhammaan ubadka qiimaha iyo qaayaha leh hooyooyinka barbaariye ee ku sugan xarunta agoomaha Hargeysa saxafiyiinta iyo halwadanada TV-ga qaranka oo inaga soo qayb galay inay baahiyaan oo gudbiyaan quruxda madashan taala ciidamada amniga ilaaliya dhammaan inta nafurka ah ee maanta caruurtaasi quruxdooda iyo farxadooda hareeraha ka taagan ayaan marka hore mahadnaqaynaa iyo ilaahay baan mahadnaqaynaa mar labaadka anoo ka wakiila hay'adda MST Foundation ee uu aasaasay ganacsadaha caanka ah Maxamed Aw Siciid ayaa kafaalo qaaday dhammaan waxay caruurtaasi ku farxayaan haday ciid tahay iyo haddii ay tahay sidii kale noloshooda u horumarinayaan oo waxbarashada oo ay diintu ugu horeyso dhammaan waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo iyo dhammaan mas'uuliyiinta boorka sare hay'adaasi ee Sheekh Daahir iyo Xamdi Ibrahim oo gudoomiyaha boorka ah inta marka laga yimaado waxaan ma aha mashruuc iyada ay ka wada MST Foundation xaruntan agoomuhu waa mashruuc dhamaaday oo laga faa'iideysto mid hadda socda iyo mid qorshaysan marka insha Allah xafladda intaasaan la wadaagana maxay ahayd ubadkaasi dhammaan cid kasta oo ka farxisana Allah ka farxiyaan leenahay waxaan ka wada mahadnaqanaa howlwadeenada madashan ee gudoomiyaha xarunta caasha iyo howlwadeenada kale madaalayaasha oo inta markasta oo nimaadnaba shaqeeya saacad kasta oo arkasta halkaas dhex taagan yihiin intay maanta saxardiid iyo hablaha kaleba ay caruurtooda la joogi lahaayeen waxay ku faraxsan yihiin inay caruurtani ka horeysiyaan caruurtooda ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo dhammaan cid kasta oo ku hawlan wax uu qabadka iyo ka farxinta caruur agoona caruur aan cid lahayn waxaan leenahay waxa weeyaan waa shaqada ugu fiican ee binaadan qabto cid kasta oo ka qayb qaadatay aad baad mahadsantihiin ونكسر كل عام وأنتم بخير دمشات كعيارتا فرحتين يعيدوا وعسيس مهدي عافي ما تكويدا عيد ونكسر
ونكسن عيد ونكسن ونكسن كل عام وأنتم بخير عيد ونكسن ونكسن عيد ونكسن ونكسن كل عام وأنتم بخير